waxaa muddooyinkan Muqdisho ka jirta in sare u kac uu ku yimid qiimaha shidaalka horta waxaa ku imaan isbedel weyn oo ku imaan qiimo hor lagu qaadi jiray fuustadu waxay ahayd 133 meelahaas 140 oo qaadi jirnay hadda 150 maray fuustada inaan ku qaadano dalkeena Soomaaliya ayaa ka mid ah goobaha laga sameeyay sahminta shidaalka laguna sheego inuu dhex eegaago kheyraad badan oo shidaal iyo macdan ah dad badan ayaana aragti ahaan qaba in haddii shidaalka la soo saari lahaa ay suurtagal noqon lahayd jaangooynta qiimaha noocyada shidaal ee basiinka iyo naftada ama si kale haddii aan u dhigno batroolka iyo dieselka qiimo kororkan shidaalka ayaa la dareemayaa muddo sanad ah waxna lagama qaban sida ay ku doodayaan qabiirada dhanka dhaqaalaha ee la hadlay kanalka gal ganacsi waxaana ay toos u saameysay oo ka sheeganaya qaybaha bulshada ee shidaalka ku shaqeeya sida shirkadaha korontada qaarkood gaadiidleyda kala duwan warshadaha wax soo saara sida makiinadaha iyo hoteelada qaar waxaa gaadiidleyda qaarkood oo bajaajleyda ugu horeeyaan ay sheegeen in qiimaha kacsan ee shidaalka ay saameyso dakhli xareyntooda iyo la macaamilka bulshada iyaga oo ku sababeynaya in basiinka ay maalintii kaga baxdo qiyaastii 4 meelood meel kamid ah lacagta ay u shaqeeyaan sida maalinlaha ah tusaale ahaan basiinka waxaa liitarka markii hore la iibinayay 64 senti halka mar dhow uu gaaray 75 senti inkasta oo maalmihii dambe uu dib uga soo laabtay isla markaana uu marayo 71 senti laba kamid ah dhalinyarada kaxeeya mooto bajaajka ayaa gal ganacsi si kooban uga hadlay sare u kaca ku yimid lacagta shidaalka la iibiyo waa nasiib macal nuur cali gal ganacsiga aad iyo aad baan soo dhaweynayaa soo idaacada gal ganacsiga gobolka horta waxaan ku qaadan jirnay $3 iyo bar hadarna $4 iyo bar waa kulli $1 ku jirto amalaya asxaabtiina qaaliga ee anaga waxa ku dib qabnaa ka shidaalka qiimada lacag oo dhibaato badan aqabad loo noqday magaalkana jaamkiisa dhibaatadiisa waa badan tahay dadka mootada leh iyo anaga waa isku dib qabnaa sida subaxdii 12 oo soo kacano ilaa habeenkii waa soconaa maxaa u soconaa shidaalkii qaali oo noqday wadooyinkii jaam dhibaatada jirta shidaalkii 64 la gada jiray haddana waxaa noqday 75 magaalka la kala gadoya dhibaatada jirto shidaalka qaaliga ah dhibaatada noo keenay waa umadiina meel dhow ay rabaan $1 hadaa dhalid mukusiyaa $1 hadaa dhalid waa ku raacayaan dhibaatadaas magaalka ka jirto qiimo kororka oo sababta shidaalka oo sababtay waxa keenay waayo shidaalkii qaali uu noqday koow calu qaaday 100 iyo 30 lagu qaaday waxa lagu daray isla isbuuc horay waxa lagu darsaday $6 lagu darsaday oo isbuuc maanta la shuwaayo dhibaatada shidaal ka jirta midaas waaye daa ku siyaasad wixii cabirkii ku dhagay ay ku dhignaayaan shacab ma hana qiimo dhibita daa u sameeysid waa shidaalkiina qaali oo noqday waayo meeshii hal ibar loo tagay $1 hadaa ku tagtid wax dan ku jirto ma jirto 5 litir awal waxay ahayd 64 markii ahayd $3 ilaa 5 senti hadda waxay tagtay $3 ibar iyo 2 senti ay tagtay ganacsatadaas intii lugta madax ka saarkaas intii naga dhaafto sida nala macaamiltama haday nala macaamiltama wala macaamiltamayna mid kamid ah dhalinyarada ka ganacsada shidaalka gaar ahaan basiinka ayaa nala wadaagaya isbedelka ku yimid qiimaha shidaalka waxa loo sababeynayo iyo baaq uu u diray ganacsatada waaweyn ee shidaalka keena dalka Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh isbedelka shidaalka horta waxa ku imaan isbedel weyn oo ku imaan qiimo hor lagu qaadi jiray fuustadu waxay ahayd 133 meelahaas 140 oo qaadi jirnay hadda 150 maray fuustada inaan ku qaadano 5 litir awal waxaa geey jirnay 3.45 hadda waxa ku darsantay 10 senti ku darsantay 3.55 ay noqotay 5 litir oo anaga dhibaato ku qabnaa kiraa nagal rabaa korontada nagal rabaa shidaalkina cirka u galay bajaajleydina senti raadiyaan hadda senti kan kala dheer tahay inay ka shubtaan waxa uu tahay halis u tahay way ka kala carrayaan marka shidaalka zaid oo hadda u kacay qiimihiisana heer aan la saadaali karin si marwa waliba waxa kasii baqayna intuu hadiya inuu kasii sarkaco oo kursi aada ka baqayna mala wax sabab ma sheegin ilaa hadda wax sabab ah keen malahan inay lacagta iga iska darsanaa inay dhibaato kale iga soo kordhay jirtana ma sheegi karnaa anaga wallahi wali ma kaga la fadhiisan laakiin hadda arjeynina insha Allah inaan kala fadhiisano kala munaaqashoon insha Allah wallahi hadda way ka kala carrayaan nin hal senti oo adiga ka yar ay raadinayaan kulli way ka kala danaysan way kala carrayaan waxay raadinayaan nin hal senti adiga ka yar anaga hadda 70 iyo kuwa gadoona qiimaha wax 70 ama 69 waxay ka raadsanayaan ka kala carrayaan hadda waxa customer sida oo loo heli jiray
maalinta aad waxaan u bixi jirtay 500 litir 600 litir hadda ma u baxdaba waxaas waxaa laga yaabaa maanta oo dhan inaad shaqaysid 200 litir ama 300 litir inay ka baxdaa laga yaabaa baaqa u direen wuxuu yahay inay qiimo xadidan ay noo sameeyaan qiimahan marna la iska kicinayo marna hoos la iska keenayo waxa laga fiican yahay waaye ganacsatada waxa ka codsanaynaa qiimo macquul oo anagana wax ka heli karno iyo inay wax ka heli karaan inay noo dejiyaan waxa ka mid ah inuu qofka ku dhahayo ii intaan litir oo ii buuxi jirtay iima buuxiso isku mid ma ilan qiimihii oo sar kacmaano awal ninkan 5 litir inuu ku shubi jira laga yaabo 5 litir ee hadda qiimihii markuu kordho 5 litir way yaraanay qiimaheeda marka inta litir ay noqon jirtay ka yaraanay qofka inuu doodkeeno ku dhaw haday wax ma igu shubin niyo shidaalkaaga ewer way feeg way aariya gada wuxuu rabo inuu iska ka dhaw oo ka danaysto Cabdirasaaq Cumar gal ganacsi Muqdisho